mujaahid cabdi la meerayso maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa waxa uu gooreen ka hadlay balan ay dhawaan wada galeen xisbiyada mucaaradka iyo madaxweyne Biixi waxaana uu madaxweynaha Soomaaliland ku eedeeyay inuu caado ka dhigtay inuu ka baxo balan kasta oo uu la galo xisbiyada mucaaradka filaanka ahayd ee shalay toole dhacday ayadoo sidaynu wada ognahay guddida dhexdhexaadinta Soomaaliland qodobadii saddexda ahaa ay soo saartay in aan halkii laga filayay inay hirgalaan arrin lama filaanihi muuse ka soo baxday anigu waxaan leeyahay bahal caydhin ma daayo ninna caadi ma baajo bahal caydhin ma daayo ninna caadi ma baajo sidaynu uga barannay muuse wuu soo celiyey dalka Soomaaliland waa dal weyn oo ballaadhan malaa muuse wuxuu haystaa guutadii afraad inuu weli xukumayo inuu dal xukumayo uma haysto arrintani ma aha arrin maanta timide sida islaanta dabadu qaawaneyd ee lahayd waa macmiil ayuunbaa layna leeyahay waa macmiil waxba dadku way arkayaan guddidii dhexdhexaadintu way arkaysaa tii caalamku way arkaysaa shicibka reer Soomaaliland way arkayaan in wacad ka baxa muuse uu ka dhigtay macmiisha ee sida islaanta uu ina leeyahay waa macmiil waxaan ka codsanaynaa waxaan aqbalayna maaha shicibkuna inaanay aqbalin dhanka kale mujaahid cabdi la meerayso hadalkiisa sii wata waxa uu ka hadlay gacan ka hadal dhawaan la sheegay inuu madaxtooyada Soomaaliland ku dhaxmaray gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee uu ciidan Injineer Faysal Cali Waraabe iyo madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxa baan islaan dagaaladu meelaha shay ka dhiciyay de madaxtooyada gudaheedii ayaaba dagaalkii laga bilaabayo de weydinkii xalay maqlayay Faysal Cali wuxuu ku hadlaayay lahaa hooyaday baa la caay Abdul Jabbar Maxamed Xuseen telefishinka Real Hargeysa